kartoona buugga kala wareegay shirkadda buugagta daabacda ee hema books munaasabadan oo ka dhacday rugta gudubta magaalada Berbera ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta u sarsaraysa dawladda hoose degmada Berbera gudoomiyaha xarunta akhriska iyo kaydka buugagta ee Berbera Public Library ugu horantiina waxa halka ka hadlay kana warbixiyay buugagtaas maamulaha shirkadda hema books Xasan Cali Maxamadi runtii farxad bay noo tahay anagu ka shirkad ahaan hema books inaanu ka qayb galno ama ka qayb qaadano horumarka ka jira dalka guud ahaan iyo horumarka ka socda runtii gobolka ayaynu buugagtaasanu keenay maktabado badan oo dalka kamid ah ayaynu runtii ugu deeqnay oo imaka aanu joogno maktabada Berbera Public Library waxaanu leenahay ardayda oo message-kaas aan u gudbinayno in ay ka faa'iideystaan buugagtaas maadaama loo diyaariyay maktabad weyn oo runtii aan aad u farxay markaan arkay maktabadaha runtii kama duwana kamana yara kamana qalab yara runtii maktabadaha aanu caalamka ku aragno waxa kaloo halka ka hadlay gudoomiyaha rugta gudubta magaalada Berbera Ismaan Xaashi alxamdulillah oo ma hadnaqayna nimankaasi maadaama ay soo gaarsiiyeen buugag aad u qiimo badan halkan horteena taala buugagtaasi waxay ka kooban tahay sidaynu arkayno cilmi fara badan aqoon fara badan oo jirta maktabadani kaligeedu buugagta ma qaadatee sida horeba loo tilmaamay gobolka oo dhan bay waraabisay gobolka saaxil meelo fara badan oo kamid ah ayay buugag badan gaarsiisay gobolada kale oo aynaba kamid tahay oo Gabil kamid tahay oo Gaashaamo kamid tahay oo Oodweyne kamid tahay oo qaar badan oo kale kamid yihiin ayaan buugag fara badan gaarsiinay gabagabadiina waxa soo afmeeray buugagta ay la wareegeen xogayaha dawladda hoose degmada Berbera Cabdikariin Aadan Cadde iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin kuna soo gaadhay maadaama aanu center noqonay oo xarun weyn oo shaqaynaysa ay noqotay inaanan ku masuugin oo maxamed maamulka degmada Berbera iyo gudida iyo maamulaha iyo maamulka xaruntan inay ku masuugin iyaguna inay sii bixiyaan dalka gudihiisa marka laga yimaado ilaa dalalka jaarkeena waa taa gaadhay maartaan idin cadeynayno marka waxa farxad kale idin noqonayso idin ku bishaareeyna deeqda aan asiisano wixii anagana dheeraada inaan anaguna deeq u sii bixinayno ujeedka ugu weyn waxa weeyaan in waxa la akhristo oo cilmi la barto aad iyo aad baan u faraxsanahay aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay nagamada maqleena waa noo maqnaydeen anaguna waan ku taamaynay waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan baahiyaha la wadaagi doono kaliya aan noqon doono kuwa deeq suga in la siiyo kambanigana kuwa wax ku darsada oo kambaniga wax u dirsada oo iyagana loo soo daabaca buug badan oo baahi loo qabo baa jirta taala oo u baahan la badiyo oo la kordhiyo marka insha Allah waan la wadaagi doonaa markaynu ka baxno xanuunkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala isagu awoodiisa kan isaga iska leeyahay isaga awoodiisa sheegtay